kadib markii kooxda al-shabaab lagu jibiyey degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose lagalana wareegay 6dii bishan ayay kooxdu isku dayday tallaabooyin xambaarsan bahalnimo iyo xishood la'aan oo ay ku dhibaateynayaan shacabka sida kooxdu soo dhagartay 14kii bishan qarax ka dhacay degmada Awdheegle oo ay doonayeen in ay ciidamada iyo shacabka ku dhibaateeyaan balse laga hortagay ayaa lahaa astaamo u xushnimo ah sababtoo ah waxay gaariga qaraxa lagu xiray ka soo hormariyeen xoolo iskugu jira lo ari iyo dameero halkaas oo ay ku laayeen xoolo badan oo ay dhaqanayeen dadka deegaanka ujeedooyinka ugu weyn ee ay lahaayeen ayay ahayd in ay gabaad ka soo dhigtaan inta aysan qaraxyadu sameyn nabaddiidku laakiin ciidamada dhiiran ee commandoska ayaa horjoogsaday cashiro la miloowaan ahna u dhigay maleeshiyaadka falkaasi fulin lahayd tallaabadan waxay muujinaysaa sida kooxdu ay wado walba ugu marin lahayd in ay daadiyaan dhiigga dadka muslimiinta iyagoo aan dhowraynin wax walba oo diinta islaamka ay dhowrtay gaashaanle cabdiraxmaan sheekh cumar jiniqaar taliyaha ururka afraad ee ciidanka danab oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ka socda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu xusay in tallaabooyinkan gurcan ee kooxdu ay muujinayso sida awoodoodu u baabaaday lana joogo waqtigii la soo afjari lahaa waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegno in ay ku guuldareysteen damaacigii ama isku daygii macna darrada ah ee ku soo aadeen kooxda argagixisada ee xarunta ciidanka lagu leeyahay degmada Awdheegle horeyna waa u sheegnay Awdheegle waa joogi doonaa insha Allah shacabkuna horey noogu yeeran waxay yiraahdeen si noo imaada تعدي لبعض يحصل بحيث مركي أو دلقانا وين أنا وبعض الشعب يجي جوابنا وأنا ونمد وأنا لا شوق دونا وأنا دفاع دونا مرة والله. طلابدي كوحدة الشباب لوجا ساري Awdheegle waxay ku ahayd dabar jab weyn waxaan haatan degmada ku soo laabanaya adeegyadii bulshada oo ay sanado cunaqabatayn dadka ugu hayeen laakiin dhinaca kale ciidamada ayaa ku sii siqaya deegaanada ay maleeshiyaadka gobolka kaga harsan yihiin. Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.